run ahaantii waxa laga cabsi qabaa in uu ku dhici doono waddan ka mid ah Afrika. Cabsi weyn ayaa ka jirta dhammaanba adduunka taasoo baraha bulshadana laisla dhex marayay gantaalkan. Dhammaanba caalamku waxa uu hadal hayaa cabsi weyn ka qabaa gantaalkii China ka fakaday. Cabsi weyn ayaa ka jirta adduunka kadib markii dowladda Shiinuhu uu ka fakaday gantaal. Waxa ay sheegeen in aanay kantarooli karaynin gacantoodana uu ka baxay gantaalkaasi. Gantaalkan ayaa tankiisu waxa uu dhan yahay 20 tan. Waxaa lagu magacaabaa Long March 5B. Gantaalkan markii ay dowladda Shiinuhu hawada u dirtay ayay waayeen gebi ahaanba farahoodana waa uu ka baxay. Sida la sheegay shalay tole waxa uu gantaalkaasi dul heehaabayay amase uu dul marayay dalka Masar halka maantana dowladda Suudaan ay sheegtay in uu usoo dhaafay halkaas iyo Itoobiya. Gantaalkan markii Shiinuhu hawada u direen ayaa waxa ay sheegeen in uu wareega dhulka dib ugu soo laabtay gantaalkaasi. Gantaalkani dhulka waxa uu ku wareegi doonaa saacadiiba xawaare ah 18,000 oo mayl. Muddo ayuu joogi doonaa dhulka isagoo ku wareegaya. Saacad kastaba waxa uu jari doonaa kuna socon doonaa xawaare dhan 18,000 oo mayl. Gantaalkani waxa uu soo mari doonaa adduunka oo dhan isagoo ku wareegaya amase maraya 30 jeer. Sida lagu sheegay bayaan uu soo saaray afhayeenka waaxda gaashaandhigga ee taliska hawada Mareykanka kuwaasoo ku raad jooga dhabaha gantaalkan. Gantaalkan ayaa Shiinuhu markii ay hawada sare cirka u direen waxa uu dib ugu soo laabtay jawiga dunida kaasoo waqti xaadirkan ku sugan dhulka isagoo ku wareegaya. Run ahaantii waxa laga cabsi qabaa in uu ku dhici doono waddan ka mid ah Afrika. Cabsi weyn ayaa ka jirta dhammaanba adduunka taasoo baraha bulshadana laisla dhex marayay gantaalkan ka fakaday Shiinaha gacantoodana uu ka baxay waqti xaadirkan oo aanay xakameyn karaynin. Gantaalkan lama garan doono waddanka uu ku dhici doono, meesha uu ku dhici doono iyo khasaaraha uu geysan doonana. Mid la qiyaasi karayo ma aha gantaalkani haddii uu dhulka ku dhaco khasaaraha uu geysan doono. Waxa uu sababi karaa dhimasho fara badan kaasoo burburinaya dhaqaale aad u fara badanna. Gantaalkan tankiisu waxa uu dhan yahay 20 tan. Sida oo kale Shiinaha waqti xaadirkan waxa lagu eedeynayaa in aanay qaadi karaynin mas'uuliyadda gantaalada. Dhammaanba waxa ku jeestay caalamkii isagoo il gaara ku eegaya maanta Shiinaha. Gantaalkaasi waxa uu dib ugu soo noqday dhulka isagoo ku wareegaya dhulka. Haddaba daawade bal isweydii haddii uu waddan ku dhaco khasaaraha intaa la eg yaa qaadi karaa si dhimashada intaa la eg ee uu geysan karayo gantaalkaas xajmigiisu intaa la eg yahay. Dowladda Shiinaha maxaa lagu eedeyn doonaa? Fikirkaaga nagula wadaag commentiga daawade. Sidee ayay kula tahay arrinkan gantaalkan ka fakaday Shiinaha? Daawade waad ku mahadsantahay haddii aad nala joogtay ilaa dhamaadka muuqaalkan. Fadlan muuqaalkan ha ka ilaawin in aad like saarto sida oo kalena asxaabtaada u sheergaraysid adigoo la wadaagaya dhacdadan cajiibka. Waa anigoo ah Nadira Saciid ayaa warbixintan idiin soo tabinaysay. Waad mahadsantahay daawade.